السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال كسر دوادة برنامجكي وحبرشة تلفزيون كقرن كجمهورية السومالان تطبعات كان برنامجك وحبرشة وحنو كسر قاعدنا مع الرشيد عبد موسى وبرنامجك هالسنيال وقبتي أرضية دكسي سريع ديب جوري سكندري سكول وحوقاتي ترى تضبع ويدين تكو قران ويدين تاسي وحوي شيخ مجلس صدحان وسيرك وحبرشة barbaarinta iyo sayniska Soomaaliland halkan oo ah dugsiga sare ee Dayibguray Secondary School waxa subaxii hore ee saaka daabuurka ardaydaasi kula wacyigelina ugu qabtay macallin Rashiid Cabdi Muuse oo muddooyinkii u dambeeyay waday barnaamij uu ugu magac daray barnaamijka Halsanyeel kaasi oo uu ku marayay dugsiyada ku yaala shanta degmo ee caasimadda Hargeysa ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay Khadar Cabdi Khayre oo ah maamulaha dugsiga sare ee Dayibguray Secondary School waxaanu soo dhaweeyay macallin Rashiid Cabdi Muuse inaanu maanta halkan aan nasiib u yeelanno inuu wacyigelintii ka fuliyo abwaan Rashiid Cabdi Muuse ama macallin Rashiid Cabdi Muuse waxaan ku leenahay ku soo dhawow abwaan dugsiga sare ee Dayibguray maamul macallimiin iyo ardayba waanu ku soo dhaweynaynaa waanu ku faraxsanahay waqtiga aadna siisay waxaan kugu soo dhaweynayaa si aad wacyigelintii aad baryahan waday wax badan ka bedeshay wadciga ardayga ka bedeshay inaad maantana aanu kugu soo dhaweyno dugsiga sare Dayibguray ku soo dhawaabwa macallin Rashiid Cabdi Muuse oo halkaasi kala hadlay ardayda dugsiga sare ee Dayibguray Secondary School ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in ardayda la wacyigeliyo isla markaasina waxa uu kala hadlay dhibaatada ay leedahay tahriibtu bismillaahir rahmaanir rahiim rahmaanka alleena oomay asaagiya yeelan ayni sareeyaha aan ilaawin hilmaamin adoomihiisa inta khalqiyo abuuray islaam iyo gaal ildoofay dulqaad ugu wada arsaaqa asiis arinaanu eeran adoon taladii amaahan wahaye ehelnimo adeegsan dadaal aadmigu awoodin ilaah le adduunyada dhan ma hadda isaga ishaaran kuna baryo u oogsan umada dhimataa u eelan sifaan in si lagu astaynin ee baa kali loo aqoonsan boqorka abidkii ab yeelan ologna aan isra sheegan odaah iyo erey la muujin kariimka og uur daboolan hoos iyo oogiya waxaasan ugu horeyn meerisyada mahadnaqa ah waxaynu ugu mahadnaqaynaa allaha weyn ee madashan iyo dugsigan inagu kulmiyay waxaaynu ku saliyeynaa nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo islaamnimada aynu ku dhaadanayno bare iyo macallin noogu ahaa marka xiga waxa maamuus leh maamulka iyo madaxda dugsiga barayaasha wax ka dhiga dugsigan oo aanu in badan baranimada ku soo wada shaqeynay iyo ardayda midhahasan iyo muuqa suuban ah ee hortayda ka muuqdaba inta kadib kulankeenan oo ah kulankii saddexaad iyo kalkii saddexaad ee wacyigelinta magaceedu yahay Halsanyeel oo ah fariin wacyigelin ah iyo fagaaraha ardayda dugsiga sare waxa uu talagalkeedu yahay in aynu ardayda ku baraarujino aqoonta iyo akhlaaqda suuban waxa aynu joognaa maanta dugsigii saddexaad oo ah Dayibguray iyo degmadii saddexaad ee magaalada Hargeysa
oo uu dugsiga dayibguray cawiya ayaanba u yeeshay wacyigelinteenna waxaa saldhigo ah oo aynu doonaynaa inaynu ardayda u sheegno mudankeenna oo ah mar kasta iyo madal kastaba tala bixinteennu waa toosnaan ka tegiddeenuna waa tacabirka iyo tahriibta maanta lagu halaagsamo inaannu iska dhiirigelinno marka oo aynu sheegno inay waxyeello mooye aanay waxtar lahayn tahriibta maanta lab iyo dhadigba loo dhaqaaqay bilis iyo boqollaba loo wada xaydan yahay waxa aynu sheegaynaa oonu muujinaynaa hoga tusaale orodka harimacadku kagama sadbadsado socodka diinka ee mid waliba saami u qoran ayuu dunida guudkeeda ka qaadaa haddii uu dheereeyo harimacadku ujeeddadu ma aha inuu cuno calafka diinka oo gaabiya ee mid waliba inuu qoran ayuu dhulka guudkiisa ka qaadaa dadkuna waa sidaas waxaa laga yaabaa inay dal iyo deegaamo ay tageen kala badsadaan laakiin qadarka iyo qoraalka inta ilaahay u qoray wax dhaafsiisan inaanu qofna soo qaadi karin sidaa darteed waxaynu iska wacyigelinaynaa tahriibta iyo dhibaatadeeda waxaynu ku dadaalaynaa aqoonta iyo tayadeeda aqoonta waxa saldhigo ah waxa sees oo ah waxa midho dhal ka dhiga hadba sida loo maalo iyo sida loo soo saaro sidaa darteed midhaha soo saaraya waxa weeye basarka wanaagsan iyo suubanaanta akhlaaqdu waa saldhigga koowaad haddii ay akhlaaqi jirto waxaa imanaysa aqoon taya leh laakiin inta akhlaaq laga arradan yahay aqoonna sidoo kale waa laga arradnaan doonaa markaa aqoonta waxaa lagu kasbadaa akhlaaqda suuban iyo basarka taasaa lagu soo jillaabsataa oo lagu soo jiitaa hadba inta aad godliso ee baraha iyo macallimiinta ku hor taagan sida aad u dhegaysato ee aad u dhugato ayaad adiguna midhodhal u noqotaa waxa aan ku talinayaa oo aan ardayda leeyahay waa inaad noqotaan dhugtayaal dhegaystayaal dhimir weeleeya iyo dhowrsanaan leh waa inaad ka dheeraataan inaad noqotaan dhex fadhiyayaal dhega adag oo dhiggooda kalena dharka uun kala mid ah waxa ay muujinaysaa in macnaha kaalinta aad ku jirto iyo kasbashadaadu ay noqoto hadba sida aad u godliso ee aad u soo jiidato baraha iyo macallinka hortaada taagan ee kolba casharka kuugu hagar baxaya baraha ama macallinku waa ka ugu deeqsisan bulshada ilaahay abuuray waagii baryaba waxa uu talagalkiisu yahay inuu wax soo bixiyo oo wax xuro qof diidan iyo mid doonayaba ka doonaya ee soo jiita ee suga wuu u dhigaayo wuu siiyaa ka diidanna wuu la baryaa si uu wax u guddoonsiiyo markaa qofka ugu deeqsisani waa qofka kii ka qaatana siiya ka diidanna ogolaysiiya ama la barya inuu siiyo sidaa darteed barayaasha waa inaad ku soo jiidataan hadba akhlaaqda si ay idinku hagar baxaan aqoontooda intaas iyadna waa talo aynu doonayno inaynu muujinno waxaan doonayaa qodobadan kooban inaad qabsataanoo waa in aydaan caadaysan qodobada ceebta ah ee ay kow ka tahay hiifka iyo haaraanka waalidkiinnu haddii aad ka dheeraato hiifka iyo haaraanka waalidka waxa la hubaa ilaahay ayaa la hubaaye inaad horumar gaadhayso qodobka labaad waxa weeye hatigaadda iyo huruufka barayaashiinna inaad ka fogaataan iyadna waa qodob lagu gaadho guusha marka laga fogaado qodobka saddexaad hayb jacaylka iyo hormaynta qabyaaladda iyadna waa inaad ka durugtaan oo aad ka dheeraataan si aad han iyo horumarba u yeelataan qodobka afraad waa inaad ka dheeraataan hurdala'aanta iyo habeen soo jeedka taasi oo keenta hamaahsi arooriyo sidaa darteed waa inaad taana ka dheeraataan beri ayaa nin bara ah
ayaa waxa uu arkay ardayad isagoo wax u dhigaya fasalka dhex hurda markaasuu ku yidhi xalay miyaanad seexan waxa ugu warcelisay maya waan seexday markaasuu yidhi kaama muuqato hurdee xalay inaad soo jeeday bay hayde goorma ayaad seexataa waxa ay ku tidhi macallin ma xagga waalidka mise xaggayga xagga waalidka 8 ka seexdaa laakiin xaggayga 3 xaggayga waa 3 xagga waalidkana waa 8 intaa ka dambaysa ee u dhaxaysa meesha laga warramay laga sheekeeyo waalkee waa bustaha iyo go'a hoostiisa sidaa darteed waa inaad ka dheeraataan hadalkaas iyo bustaha laga hoos sheekaynayo taasi waxay keenaysaa hamahsi arooriyo qodobada aad ku dadaalaysaan waxa kamid ah oo heelinta xaq Ilaahay iyo diinta inaad ku dadaashaan waa qodobka labaad ee ku dadaalaysaan waxa weeye inaad hankiina dhistaan oo aad hami iyo hal abuur yeelataan qodobka saddexaad ee aad ku dadaalaysaan waxa weeye inaad hiigsi suuban iyo halbeeg yeelataan oo cidda ku habboon aad ka dhigata halbeegu ma ciyaartooyada ka ciyaara dunida ee hebel iyo hebel lehba mise inagu halbeeg baynu leenahay dhab ah oo jid suuban ku socda oo nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam inaga halbeegeenu uu iska cad yahay nin ayaa la weydiiyay waa maxay waayeelku waxa uu yidhi waayeelka iyo wax garadku waa adiga oo aan siyeelin waayeel haddii aad doonayso waa adiga oo aan siyeelin carruur haddii aad doonaysana waa adigoo siyeelaya adigoo carruur iska dhiga waa la karaa adigoo waayeel noqdaana waa mid kale sidaa darteed taasna waa qodobka u dambeeya aynu doonayno tala bixinta guud inaynu ku darno waa inaad kobcisaa afkaaga guud ahaan iyo suugaanta waa inaad kobcisaa kor u qaadka aqoontaada afeed ee aad hiddaha iyo dhaqankaba u leedahay waa kuma baraha koobaad ee afkeennu yaad u malayn lahayd ama yaad ku warcelin lahayd inuu yahay baraha koobaad ee afkeennu waa hooyadu waa barbaariye u hagar baxday qofka inay afkiisa iyo hiddihiisaba dhisto sidaa darteed baa loo yidhi afka hooyo marka hooyadu waa baraha koobaad ee afkeenna marka wiilkii la soo barbaarinayo marka u horeysaba way u soo heestayoo wiilkii maxay ugu soo heestay heesa ku quman haddaad gaadhood gabowdo haddaad geeliina raacdo haddii guluf ugu yimaado mar uunbaad gu ilahayde magoo geelaha uga cararin waa heesaha lagu soo barbaariyey wiilasha hablaha maxaa lagu soo barbaariyey rag baa goonyaha ka muuqda gayaan baa guriga jooga aday geelkaa wadaane go'doy gaagaabsa hadalka go'doy gobonnimo sameeyo go'doy gaagaabsa hadalka waa hees haddii lagu soo barbaariyey qofku uu fulinteeda fulin karo laakiin haddii aan qofka heestaa lagu soo barbaarin way ka maqnaanaysaa inuu fuliyana lagama yaabo dabeedna waxyaabaha laga doonayo hablaha waxaa ka mid ah inuu cagteeda iyo carabkeeguba gaabnaado oo aan codkeegu muuqan oo aan hadalkeegu aanu hadal dhaadheer oo meel kasta laga maqlayo aanay noqon si aanay gayaanku dib uga joogsan taasi waxa weeye markaasi qodobo ceeba in macnaha duryankooga iyo hadalkoogu u bato hablaha iyadna waa ceeb dhaqan ahaan oo waxaa la odhan jiray carabkeegu ha gaabnaado cagteeduna ha gaabnaato waxaynu doonaynaa markaa inaynu ku soo gebagabayno qaybta ugu ballaadhan bandhiggeennan iyo wacyigelinteennan qaybtaasi oo ah kasmada weydiimaha iyo kasbashada abaalmarinta waa kasmada weydiimaha iyo kasbashada abaalmarinta arday waliba wuu muuqan doonaa inta maqan ee dee muuqataana waa la arki doonaa weydiimaha aynu ku tartamayno ee aynu doonayno ardayda wiilal iyo gabdhaba inay ka qayb qaataan waa 8 weydiimood oo u qaybsan 4 fasal fasalka koowaad waa 2 arday oo wiil iyo gabadh ah halka fasalka labaadna ay noqon doonaan 2 arday oo wiil iyo gabadh ah fasalka saddexaadna sidoo kale waa 2 arday oo wiil iyo gabadh ah iyo fasalka u dambeeya
oo isaguna laba arday wiil iyo gabadh ardaydaasi soo kacaysa fasal baynu soo kicinaynaa dabeedna fasalka aynu ka bilowno oo ah fasalka koobaad ayaa waxa soo kacayo aynu doonaynaa inay dhiiranaan iyo kalsooni iyo kas ay ku soo kacaan laba arday waa ardayad fasalka koobaada iyo arday fasalka koobaada oo tiradaasi aynu halkaa dhigayno qaadan doono nasiibkooda lambarka ay qaataan weydiinta ka soo baxdana ka warcelin doona gunaanadkii macallin Rashiid Cabdi Muuse waxa uu halkaasi ugu qabtay tartan ay isku weydaarsadeen ardayda fasalada koobaad labaad saddexaad iyo afraad ee dugsiga sare ee Dayib Guray waxaanu halkaasi ku guddoonsiiyay qaar ka mid ah buugaagta uu qoray macallin Rashiid Cabdi Muuse waayahay labada arday oo soo kacay labada weydiimood isla markaana labada arday u kala taagan yihiin fasalka koobaad waa wiilasha iyo hablaha waana fasalkii koobaad lambarada halkan yaala ee doodooban ayuu qaadanayaa mid waliba tirsiga ka soo baxa weydiinta ka soo baxdana waa uu ka warcelin doonaa insha Allah waayahay labadii arday waxay kala qaateen laba lambar oo ay ku kala qoran yihiin laba weydiimood oo kala duwan waxa aynu ku horeynaynaa wiilka oo midigtayda jooga waxaana u soo baxday weydiinta sideedaad ee weydiimiheenan weydiintaasi waxay odhanaysaa dhammaystir maahmaahdan saddexleda ah maahmaahdaasoo odhanaysa saddex way madowdahay bismillaahi araxmaani araxiim anuu magacaygu Khaalid Cabdiraxmaan Aadan kana soco fasalka ee dee jawaabta su'aasha isku dayo waa dhuxusha iyo habeenka iyo gudcurka waayahay ardaygaasi waxa uu yidhi saddex way madowdahay dhuxusha iyo habeenka iyo gudcurka buu yidhi weydiinta warcelinteeda muu garanin sidaa darteed maamulaha codsaday weydiintaasi inuu isku dayo bismillaahi raxmaani raxiim weydiinta haddaan isku dayo nin abwaana ayaa yidhi saddex way madowdahay nin walaalkii mayd yahay nin magaanyo guursaday iyo nin magaalo lagu dhacay waa uu mahadsan yahay maamuluhu weydiintaa warcelinteeduna waa taa idi siiyey saddex way madowdahay nin walaalkii mayd yahay nin magaanyo guursaday iyo nin magaalo lagu dhacay weydiinta u soo baxday ardayda u fasalka koobaada weydiinta u soo baxday waa weydiin ah carablayli ama carab jalqin inkastoo ay dheer tahay bal haddana waxaa la doonayaa inay dhegaysato oo ay dhugato dabadeedna ay ku celceliso markaa waxaa lagaa doonayaa inaad tidhaahdo shimbirta baas kululaa kadana sideebay subag sumal oo kulul oo kadan oo kidi hoos yaal ula sii kurubaa kadhabaa tidhi waxaa lagaa doonayaa inaad tidhaahdo shimbirta baas kululaa kadana sideebay subag sumal oo kulul oo kadan oo kidi hoos yaal ula sii kurubaa kadhabaa tidhi shimbirta baas kululaa kadana sideebay subag sumal oo kulul oo kadan oo kidi hoos yaal ula sii kurubaa kadhabaa tidhi shimbirta baas kululaa kadana bismillaahi araxmaani araxiim anigoo magacaygu yahay Hoodo Mawlid Daahir oo ka socota fasalka 1B maxaa tiri shimbirta baas kululaa kadana shimbirta baas kululaa kadana sideebay subag sumal oo kulul oo kadan sideebay subag waa ay mahadsan tahay weydiintaa warcelinteedii ma isxin
laakiin maamulaha oo ka warceliyey maahmaahdii abaalmarintii waxaa ku guulaystay maamulaha tii ahayd 3 way madowdahay waa tirsiga ama tirada 6 ayaa u soo baxday ardayga ardaydana waxa u soo baxay weydiinta ku qoran tirsiga 1 marka waxay kala qaateen 1 iyo 6 midigtayda waxa taagan inaka marka isaga ayaynu ku horeeynaa weydiinta u soo baxday ardaygan oo ah weydiintaasi ku qoran 6 weydiinta u soo baxday isaga waxa weeye hees hawleed xabada hees hawleedka ayaan doonayo inaan akhriyo waxa la doonayaa inuu garto waxa loogu heeso hees hawleeda qoran ee aan akhriyo isagoo midhaha kala soo dhex baxaya waxa la doonayaa inuu garto waxa loogu heeso hees hawleedana waxay leedahay kor wadaadlay kor ninkaa jiray koorna kuu xidhay kaalla kaa muday kor wadaadlay kor ninkaa jiray koorna kuu xidhay kaalla kaa muday بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamed ismaaciil loona yaqaano maxamed duceeye waayahay ardayadaas fasalka labaad iyadna waxa u soo baxay weydiinta ku qoran tirsiga ama tirada 1 weydiinta 1 ku qoran waa weydiin dhaqan ah waxa laga doonayaa inaad sheegto 4 magac oo loo bixin jiray ragga ama wiilka midabkiisu yahay madowga 4 magac oo loo bixin jiray waayahay ardaydaasi ma ay sugin weydiinta warcelinta weydiintaasi 4 magac oo loo bixin jiray ragga madowga ah ee way ka badan yihiin waxa loo bixin jiray 12 magac waxa ka mid ah 4 magac sugulle maygaag haybe caynab tukaale magacyadaas oo dhan waa madow waxa la doonayaa fasalka saddexaad labada arday ee soo kacaya waa inamada oo mid ah iyo hablaha mid ah weydiibaha waxa soo kala baxay tirada 1 tirada waxaan u jeedaa 2 iyo 3 wiilka oo ka horeeyay ayaa waxa soo baxay tirada 3 weydiinta ku taala 3 waxa weeye waxa aad sheegtaa 2 geed magacood oo ka bilaabmo shaqalka u xarafka uda 2 geed oo magacu ka bilaabmo sida ubax oo kale imika ubax ma aha geed laakiin waa tilmaan iyo mar ay dhirto dhan bixiso sida darteed waa inuu ka bilaabmaa geedka magaciisu 2 geed oo ka bilaabma xarafka u بسم الله magacaygu waa Anwar Axmed Cilmi ka socda class 3 ee hadda su'aashaas ku dayo ardaygaasi ma uu garan warcelinta waxa la doonayaa xarafka uda magacyo ka kaca oo geedaha way badan yihiin xarafka oo geedaha ka kaca waxa kamid ah uneexada unuunka ubataysta waxa soo dhaniba waa geedo ardaydaasina waxa u soo baxay tirada 2 u soo baxday lambarka 2 waxa ku qoran googa waxa laga doonayaa cigal iyo warcelintii oo aad dhamaystirto googaadan waxa ku qoran awr madoobi abaar qooq بسم الله magacaygu Hussein Abdurrahman waxaan ka socdaa galaaska 3B awr madoobe abaar qooq waxa la dhahaa kiliga shaaxa ardaydaasi warcelintaasi waa ay garatay mar haday kiliga ma tiri waa dhariga ama kiliga wixii wax lagu kariyo dhan ayaa noqonaya awr madoobe abaar qooq abaalmarintii way ku guuleysatay inay hesho buuga nooli kulante waayahay
fasalka afraad iyo labada arday ee kas iyo kalsooni ku soo kacaya kas iyo kalsooni waa labada arday ee fasalka afraad waa inamada oo mid ah iyo hablaha oo mid ah waaye wiilasha uu soo socdaa isaguna sidoo kale waynu sugaynaa waxaynu sugaynaa wiilasha fasalka afraad mid ka mid ah waay labadaasi arday waxay kala qaateen laba lambar wiilku waxa uu qaatay tirada ama lambarka 7 weydiinta ku qoran ardayduna waxay qaadatay tirada ama lambarka 5 weydiinta ku qoran 7 ayaan ku horeynayaa wiilka waxa uu qaatay tirada 7 weydiinta ku qoran weydiintaasi waxa weeye sheeg magaciisa oo saddexan wasiirka waxbarashada barbaarinta iyo sayniska ee Soomaaliland sheeg magaciisa oo saddexan wasiirka waxbarashada barbaarinta iyo sayniska ee Soomaaliland bismillahir rahmanir rahim magacaygu waa Asad Kaysar kana socda galaaska foorka ama foorse loo yaqaan haddaan su'aasha inkastaan ka xumahay garashada wasiirka haddaan isku dayo waxaan jecelahay inuu ahaa محمد عبدي الدعاء لأنه هو تعالى محمد عبد الدعاء waaye ardaygaasi muu garan laakiin hal arday baan doonayaa inaan uf ka faa'iideeyo fasalka afraad waxaan ku dhiirigelinaynaa inuu mid kala soo kaco oo magacoo saddexan sheego waxa laga doonayaa magacoo saddexan wasiirka waxbarashada barbaarinta iyo sayniska ee Soomaaliland magaciisa oo saddexan yaa ka faa'iideystay fasalka afraad fasalka afraad ma tabarto 4A way isku day bismillahir rahmanir rahim magacaygu waa Sacad Saciid marka wasiirka laga doonayo wasiirka magaciisa haddaan isku dayo waa maxamed faysal ducaale waayahay sidoo kale ardaygaasina muu garan maxamed faysal ducaale buu isaguna yidhi waay bal ardaygaas aynu saddexaad ayaynu doonaynaa inuu ka faa'iideysto waay sox waa wasiirka waxbarashada barbaarinta iyo sayniska Soomaaliland magaciisa oo saddexan haddaan isku dayo waa Ismaaciil Ducaale Yuusuf ardaygaasi waxa uu yidhi haddaan isku dayo waa Ismaaciil Ducaale Yuusuf sidaasi ayuu ku saxay waayahay abaalmarinta waynu guddoonsiinanaa daawadayaal barnaamijkan waxbarashada barnaamij la mid ah intaanu ku kulmana waxaanu idinkaga tegaynaa dhammaan bahda TV-ga qaranka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.